kadib markii uu dhamaaday mooshinkii xajka sanadkan oo ahaa kii wuxuu la dirista badnaa ayaa maamulaha macjarka Aljaabiri Dr. Saad Ahmed uu soo saaray wareegto uu shaqadii kaga eriyay shaqaalihii macjarka xoolaha ka shaqeynayay in ku dhow 8 qof sida ay sheegeen shaqaalaha macjarkaasi oo saaka isugu soo baxay macjarka hortiisa waxaanay haddaba ka cabanayeen xuquuqda asaasiga ah ee qofka shaqaalaha u leeyahay sida xuquuqda qofka marka uu shaqada ka tago ama laga eriyo dawada iyo waliba xilliga ay fasax u baahdaan iyo waliba mushaarka oo ay sheegeen in aanu meel fadhiyin aan ka cabanaynaa hadii aanu nahay shaqaalaha macasharka Jaabiri waxaanu ka cabanaynaa maamul xumo cadaalad xumo nagu dhacday oo iyo hadda socotay ilaa sanadkii u horeeyay markaanu ka bilowno ee uu dhamaaday labadii sanadood ka dambeeyay oo nagu bilaabay yeera annaga idin yeedhay waxaan idinku yeedhayna waxaan ninka soo kala gaaro waxaana weeyaan haddii xukuumaddu soo kala gaari weydo ilaa waxbaanu dhowrayna danaha lagu qabo meesha ee ay dawlad iyo shacab ku qabaan waa dhowrayn wax kasto aanu dhowraynay marka dhowrimayna haddii dawladdu iyadu soo kala gaari weydo shaqaalaha saaka shaqada ka soo jeetiroodu waa imisa 8 mushaarka uu insiin jiray misuha mushaarku 170 wuxuu doonaday waxaan hay shaqaalaha macjarka magaalada Berbera 3 sanadood la maalintii la furiyo ka shaqeynayay waxaanu ku qabnay inta aanu joognayba dulmi aan qof bilaadan oo ilaahay abuuray wadkaysan karin anagoo dhowrayna jiritaanka Soomaaliland iyo sumcadda Soomaaliland waxaanu islaa dawladdiina ayaa carabkan idinka soo gaadhay wax idinka qaban maanta markii aanu ogaan waxa noo cad taxaqqa iyagaba cuntay ku jiftay Soomaaliland sababtoo ah carabka cadaalad darrada sameeyay oo naga qabanaya xukuumadda waxa jira qaar masaaridu jajabisay oo dhaqaatiir kuwa dhiga qaada oo iminka ku qoray 8 kaleeriye kamida anigu labada indhoodba wallahi digada iyo xabaaskan ku indhabeen kambeyn waxaanu yiri heshiis ma gasheen heshiis cid aanu la kalaabo wala xukuuma wala wasaaradda xanaanada xoolaha midna ma jiro guddi odayaala oo dadkana qaar keentay oo tirun hal qoro meedhan baa xalaal iyo waxaanu ka galay meeshaas ma jirto laakiin maanta waxaanu doonaynaa in xaqayaga iyo xuquuqdeedii ceeblaan oo lagu siiyo annaga iyo carabkaana la soo kala gaaro sidoo kalena madaxa shaqaalaha ee macjarka Aljaabiri Mustafa Maxamed Nadiif oo arinkan aan wax ka weydiinay ayaa isaguna ka jawaabay mushkiladan saaka dhacday waxa sababay shaqaalaha la dhimay shaqeeyaan awgeed taas oo ay sababtay markii uu dhamaaday moosinku kadib markuu arkay maamulka macjarka shaqaalaha badan ee ka shaqeeya macjarka taas oo shaqaalihii barahaan la dhimay taas oo shaqaalaha tiradooda ay gaadhay 780 dabeedna shaqaalihii ku dhawaad 40 la dhimay taas oo ay sababtay shaqada oo yaraatay awgeed shaqaalaha la dhimana aan ahayn shaqaale aad u shaqaalihi wanaagsan ay tahay shaqaale lagu dhimay sabab dabcan 3 sano ee ugu dambeysay ee uu shaqeynayay macjarka Aljaabiri ayaa ay soo tarayeen cabashada shaqaalaha oo tacad badan ka tirsanayay maamulaha macjarkaasi Dr. Saad Ahmed waxaanay baaqoodan u direen hay'adda shaqaalaha Soomaaliland iyo waliba wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada si ay wax uga qabato Yaasiin Jaamacali har wanaag news magaalada Berbera.